Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ma isku aragtay afka oo si kadis ah dhinac u qalloocdo, hal il oo aadan dabooli karin, wejiga oo dhinac dareenku ka tagay, dhadhanka oo kaa luma, ruugista oo kugu adag, caliyada oo aadan ceshan karin, iyo dhoola caddeynta oo ku dhibta? Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socda ay ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Ciladan Soomaalidu waxay u taqaanaa af qallooc ama shimbirow. Waxay timaadaa markii dareensidaha toddobaad ee maskaxda shaqada joojiyo, kaasoo dareensiya murqaha wejiga. Dareensidahan wuxuu dhex maraa meelo ciriiri ah oo lafaha wejiga ah, taasoo keeni karta inuu si sahlan u cadaadismo barar dartiis. Waxyaabaha ugu badan ee bararaya neerfahan waa caabuqyada ay keenaan fayrasyada iyo bakteeriyooyinka qaar. Jeermisyadan qaar waxaa laga yaabaa inay jirka hore ugu sii jireen si dhib la'aan ah, laakiin ay kiciyeen xaalado qaar sida stresska, hurdo la'aanta, iyo xanuunada qaar. Markuu dareensidaha caabuqo, wuu bararaa, kadib qulqulka dhiigga ayaa ka xirma, sidaas ayuuna dareenka ku joojiyaa. Markay saas dhacdo, wuxuu qofku dareemaa in murqaha wejigu shaqada joojiyeen, sida kuwa indhaha daboolo, kuwa daamanka iyo faruuryaha kontaroolo, sidoo kale kuwa calaajinta iyo ruugista qaabilsan. Jaaniska xanuunkan ku haleelo wuxuu badan yahay 1 ama 2 usbuuc kadib hadduu ku soo maray hargab daran, caabuqa dhagta ama indhaha. Astaamaha xanuunkan si kadis ah ayay ku yimaadaan, waxaana badanaa la isku arkaa subaxdii hore, weliba markuu qofku isku dayo inuu wax cuno ama cabo. Badanaa xanuunkan waxaa laga dareemaa hal dhinac oo wejiga ah, laakiin marar dhif ah labada dhinac ayaa laga dareemi karaa, taasoo macnaheedu ah in labada dareensida ee wejiga ay ciladoobeen. Astaamaha kale oo qofku dareemi karo waxaa ka mid ah shanqarta dheer oo la dhibsado, wejiga oo dubaaxiyo, isha oo qallayl laga dareemo, iyo xarfaha qaar oo lagu dhawaaqi karin. Waxaa xanuunkan halis ugu jiro hooyada uurka leh, dadka macaanka qabo, ama qof qoyska ka mid ah haddii ciladan hore u soo martay. Xanuunkan waxaa lagu gartaa aragti, mana jirto shaybaar dhiig oo u gaar ah, laakiin mararka qaar waxaa dhaca in af qalloocu ka yimaado faalig ama stroke qofka asiibay. Sidaa darteed waxaa lagu diri karaa iskaan xagga maskaxda ah. Sidee loo daaweeyaa ciladan? Dad badan xanuunkan way ka bogsadaan usbuucyo kadib iyagoo aanan qaadan wax daawo ah, qaar kalena wuu ku raagaa. Waxaa jira daawooyin dedejiyo bogsashada dareensidaha, laakiin waa in la bilaabaa maalmaha ugu horreeya si isbeddel dhaqso ah loo helo. Kullama xanuunku raago, daawo la'aan, kullama ay bogsashadiisu ay soo daahdo. Waxaa kaloo qofka lagu caawiyaa ilin macmal ah oo indhaha lagu qooyo, sharooto lagu daboolo markii la jiifanayo, iyo jimicsi murqaha wejiga looga shaqaysiiyo. Gubista xal uma ahan ciladan, waxayna qofka ku reebtaa raad dab oo aan weligiis ka baabi'i doonin. Halkaas ayaan kaga baxay casharkan. Wixii su'aalaha noogu soo gudbi qaybta commentiska ee muuqaalkan. Waana mahadsantihiin.